السلام عليكم walaal soo dhaw insha Allah maanta waxaynu qaadan doonaa cashkii sideedaad ee ku baranayna luqadda JavaScript maanta waxaynu baran doonaa hadduu alidmo math object waa maxay math object maxay tahay shaqada ay qabanayso maxaynu ka faa'iideynaa waxaynu isku arki doonaa isla cashirkan marka hore waa maxay math object waa object ee luqadda inoo diyaaraday kaas oo loogu talagalay inaynu ku isticmaalno dhammaan wax kasta oo la xiriiro xisaabaadka JavaScript waxay leedahay object inoo suurto gelinayo wax kasta oo la xiriiro xisaabta inaynu ku isticmaali doono sida loo isticmaalaa marka hore waxa ogaataa waa built-in function ama built-in object da maqashid waa object ee luqadda inoo diyaaraday kaliya la rabo inaan isticmaalno waxaynu isla fahmi doonaa marka qaabka loo isticmaalo iyo sidoo kale awoodaha uu leeyahay math object marka waxaynu arki doonaa waxaynu dhihi doonaa marka koowaad math marka isticmaalaysid isla objectiga ayaa waxa doontaa kadib waxaad u baahan tahay properties aad ka isticmaalaysid tusaale ahaan markaan iskuul joogno by maxay la mid ahayd by waxay la mid ahayd 3.14 hadaan u baahanahay by hore ayaa lagu diyaariyay kaliya waa waxa doonaa waatana waa 3.14 sidoo kale waxaan waca karaa ama aan isticmaali karaa inaan dhaho math kadib dot aan dhaho round hadaan u baahanahay tiro in la wareejiyo round marka dhawada tiro aad geli doontaa tusaale ahaan hadaan dhaho 4.3 kaliya waxa round lagu sameeyo doonaa 3 dan waxa la soo qaadan doonaa 4 balse hadaan u baahanahay tiraas inay 5 noqoto waa inay tirada meeshaan 3 da ka kulmartaa 5 waxaan dhihi doonaa meeshaan 5 ama tiro ka badan kadib waxa lagu sameeyo doonaa round tiro ayaa la wareeji doonaa waxa lagu buuxi doonaa godka 4 ka kadib waxa laga dhigi doonaa 5 ama tiro kale 7 hadad ka dhigtid isla round ayaa lagu sameeyo doonaa waa same waxay isdhaaban malahan sidoo kale haddii aan u baahanahay inaad tiro ku sameeyo power jibaar waxaan isticmaali doonaa objectiga lagu magacaabo math dot markasta waa inaad u yeeritid functionka kadib dot markaad tiraahdo waxa u baahan tahay power aa isticmaali doonaa oo lagu soo gaabiyay power kadib maxaa jibaar lagu sameeyo doonaa tusaale ahaan 2 ayaa waxa dhigi doonaa waxa ku jibaartaa 2 tiradan hore waa tirada la jibaari doono tirada dambe waa tirada lagu jibaari doono saxda doonaad wuxuu inoo soo daabici doonaa 4 balse hadaan dhaho meeshaan tiro ka badan oo kale 2 ayuu wuxuu ku jibaari doonaa 6 oo la mid ah 64 sidoo kale waxay leedahay function kale oo lagu magacaabo kan ayaan isku koobi garaysan doonaa kaliya waxaan ku bedeli doonaa properties kan u baahanahay sidoo kale waxay leedahay wax lagu magacaabo square haddii aan u baahanahay number inaan leeyahay saar square waxaan geli doonaa numberka square ka leeyahay saar doon tusaale ahaan iskuulka markaan joognay 144 maxay la mid ahayd power ka saar 144 waa 12 runtii fashalkan wuxuu soo xasuusiyay xilligan iskuulka liganay haddii aad tahay programmer ama haddii aad tahay qof IT ah badanaa xoog masaayir doonta xisaab badan lama isticmaalo meel dif ayaa looga baahan yahay marka tusaale ahaan hadda dhaho meeshaan 64 oo kale hadda dhaho 64 hadduu ka saaro square-ka maxay noqonaysaa 8 marka functionkan wuxuu inoo suurto gelinayaa square lagu magacaabo number kasta uu gelino inuu ka saaro square-ka sidoo kale waxaa jiro function kale oo lagu magacaabo floor haddaan dhahno floor oo yaani dhahno 2 ama 3.5 wuxuu 3.4 sorry wuxuu noo daabici doonaa 3 floor waa qaybta hoose ee guriga marka waxa la diji doonaa numberka pointiga ka sareeyo kaliya waxa la soo qaadan doonaa numberka hore oo coefficient horgara haddii aan dhaho laakiin sili meesha hadaan dhaho sil waa qaybta koroto ee guriga oo yaani saan dhaho 2.6 oo kale ama 8 number ka sareeyay isla sidii oo kale lama sameey doono balse waxa la sameey doonaa number ka sareeya lagu buuxi doonaa isla sidoo kale waxaa jira function ama object inoo qabo doono wax lagu magacaabo kale qaybtana waxaan dhihi doonaa random tirada random haddii aan sheegin random horta waxa la tiro markasto la soo celcelinayo tusaale ahaan 1 iyo 5 qofkan yaani number marabtiina u doortid nasiibkiisa rabtaa inuu tijaabiyo number qabsaa dhigi doontaa 1 ilaa 5 numberka kadib ayaa u tuuri doontaa dhac numberkii soo baxo numberkaas waxa lagu magacaabaa random haddii aadan number sheegin markasta wuxuu random ku sameeyo doonaa 1 0 ilaa 10 waa soo celcelin doonaa sida ujeedin ba hadda waxba inoo sameynin kana refresh aan dhihi doonaa kadib wuxuu soo celcelin doonaa markasta number u dhaxeeyo 0 ilaa sidoo kale 10 haddii aan u baahanahay number cayiman sheegto waxaan dhihi doonaa qaybtan waxaan ka hormarin doonaa math
math markaan dhaho dot floor ayaan dhihi doonaa kadib bracket-kan iska xiri doonaa bracket-kan soo xiri doonaa hadda marka waxaa loo baahan yahay tirada round ay ku sameynayno qaybtan powerka waxaan dhihi doonaa round random ayaan dhihi doonaa random kadib maxaa random lagu sameynaa waxaa ku sameysay ayaan dhihi doonaa ilaa 10 hadda kaliya waxa randomka lagu sameyn doono waxay noqon doontaa numberka u dhaxeeyo 0 ilaa sidoo kale 10 waa kana 6 marka la rashidana waxa soo bixi doona number kale ka duwan 5 3 8 1 5 9 marka waxaan filayaa inaan isla fahamay function-kan oo runtii function powerful ah inuu soo koobayo wax kasta oo la xiriira xisaabaadka haddii aad u baahan tahay inaad sameysto tusaale ahaan website e-commerce ganacsi online aad u baahan tahay lacagta yani shay joogo $5 dhibic iyo bar joogo point-yaasha ka dambeeya inaad iska yarisid waxay isticmaali doontaa round haddii aad u baahan tahay in jibaar lagu sameeyo waxay isticmaali doontaa power haddii aad u baahan tahay number in square laga saaro waxay isticmaali doontaa square floorsid functions-ka dhammaan waa tijaabi kartaa waa functions noo qabanayo dhammaan xisaabaadka wax kasta oo la xiriiro waxaan rajeynayaa inaan isla fahanay waxa uu yahay math objective ee leedahay luqadan javascript waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka fadlan haddaa nagu cusub tahay nagu soo biir sidoo kale asxaabtaada u sheer garay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.